وحاجر مكتب لهذا حفيزك مرشد كسر إيران حكم كاسي وحيا لا هداد دشيدين بكمثلا آية الله علي الخامنئي هداد دشيد وحال الدورتي إلا تضمن وكله ويسوي بدلها وكم يدي هنا كيسو ويسوي كأدق هدي وجريوذا عمل الدلو replacement تيجي مشو جوجا وجوا تضمن البلد وسدبي لا succession وحكم يدي هنا كيسا كم يدي وذاك ومرك دين تنسيس أو يقانا كان أدق أدق كأدق waxaa jooga kuwo isaga ka soo horjeeda laakiin ka visionary oo wadanka inay qabtaan laga yaabo marka todoban baa kala diyaariyay xafiiskaasi waa xafiiska Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan xakumeeya sidiisu u fadhiya isagu waana xafiiska qaraarka ugu dambeeya waxaa jira madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda la dhaxdo labadaanini waa laba nin oo bidix ah midig ma aha ma adko waana dadku isku halaynayo ninka la yiraahdo Trump waliya hadda iyagu soo hadaan iyaga sheekadooda waa suurtagal weeyaan waxaa jira majliska ilaalinta dastuurka oo ka shaqeeya dawladaba ilaaliya marka majliskaasina waa majlis adag waxaa kaloo jira golaha shuurada oo baarlamaanka la mid ah waxaa jira majlis yiraahdo khubara'ul qiyaada khabiirada dawladda oo isaguna meel fadhiya waxaa jira ciidanka waxaa jira security amniga waxaa jira xarasu sawriga oo qolada ugu khatarsan intaas oo dhani waa in la heshiisiyo u sameeysid wadanka inaad qaban kartid intoodana awooday leeyihiin ciidamada way leeyihiin waa wada awoodo wada socota is ilaaliyana isku afkaarna ma aha laakiin waxay ka midaysan yihiin Iiraan awalan waxay ka midaysan yihiin ashiicatu awalan waxay ka midaysan yihiin fikratu Khomeini awalan thawra saddex shay laakiin waxa kale oo isku khilaafsan waa tahay marka haddaad murshidka dishid kan waa la mid kan kale waa la mid wax u dhaxeeya ma jiro marka adiga waa inaad fahamtid dawladdan inay ahayn dawlad caadi ma aha marka taas waa mid labaad keenaysa inay adag tahay in la rido mid saddexaad jirto in adag in la rido waxa weyn maxaa ka dhalanaya hadii la rido arinta ka dhalanaysa waxa weeyaan in uu dagaalku daba dheeraado oo ka baxo gobolka sidoo yiri odayga Khomeini dagaal haduu dhaco mandiqado dhan bis qabsanaysa waxa la yiri maalin dhowr daraasad la sameeyay Sacuudiga qarxaya Kuwait qarxaysa waxa qarxaysa Imaaraadka qarxaya shiicada mandiqado dhan ba kacaya marka dhibaato weyn baa mandiqada ka dhaxay doonta oo xaqiiqada wax yaab leh wax weeyaan nin baa qoray الاستثنائية الإسرائيلية إسرائيل وإكسبشنال حوجة جدا مريكا لبدي يكون يشان يلبعتك يمكن نقدر ماضي بالدجي استراتيجية الدفاع يا مريكا أفرط الثلاثة صعود وحال مريكا هو حلالنا يا قارد أمريكا سادرادد بو جزيرة لسكو هايستا معايا جرينلاند وسوق عدنا يا halkaana wuxuu dhigay wuxuu bixiyay alqubba dahabiya baasha difaaca ee dahabiga tani Israa'iil ta la xadiidii u bixiyay xadiid baad tukaweyn mudaya marka wuxuu leeyahay hadeeto ninkii igu yimaada qaaradda Ameerika waa la dagaalamaya waa soo oranaya cadawga koobaad ee leenana waa China weeyaan su'aal baa la isweydiiyay wuxuu Iiraan ka rabaa hadii saatahay waxa Iiraan wuxuu ka rabaa dawlad leedahay jirta dawlad Israa'iil leedahay oo systemka Ameerika loo yaqaano ad-dawla al-istisnaa'iyya dawladda exceptionalka ah in la ilaaliyana ay waajib tahay laba shay marka hadaf Mareykanka u yaala hadafka koowaad waxa weeyaan in cadawga ay leedahay dawladda Israa'iil dhammaantood agtida loo skeeno inta uu Trump joogo hadaf weeyaan hadafka labaad waxa weeyaan in lagu wareejiyo mafaatiixda hoggaanka bariga dhexe Israa'iil oo Mareykanka iyo qarbiga ay faranka qaadaan marka oo dawladahan la yiraahdo okay ana awali daba socday Soomaaliya Israa'iil daba socdo إسرائيل وأنا ندريمين wax tahdiid ama خلاص ayna dareemin Mareykanku markuu soo ururiyo self examination arintaasi ma suurta galaysaa maya waxayna u suurta galin
إسرائيل ضعفها إمك هيستوي ولي المسؤولين ديارنا وماها إني برجع بحكتها كرتو أبودا ما تمهيز أريد الله بعد برجع ده وحك أبور ميا أبوده صوك عيا والمركي هوري آنن سيدا أي اسكو دريسين اسكو دريسين أو كم تاي باكستان سعودي إيو تركيا وحال دريمي إني حلوف النقدين سي استراتيجي بيكون فكريا وسي أول تولي كدول أنا كلا أدوك صوبيرت وحا صوبيري دقالكي مريكانكا إيو ريقلبيتكي إيو روش إيو شينة إنو قاتي دقدق oo iminka shiinaha iyo ruushku waliba shiinuhu wuxuu u wadaartay Yurub Canada Rosary Canada wuxuu yiri adduunkii aan naqaano u dhamaaday mana sugayna dunidii hadda inaan sii sugno wana ducus la sameeyo mid khatarta wax way sheego dagaalkii labaad markuu dhamaaday waxa la sameeyay nidaamka adduunka maanta xukuma oo jumhuriyadda qurumaha ka dhaxaysa abaka tahay معنا هو جميع جماعة القرآن كان حيسا سكوريتي كانسر كان حويها جودة مش عسي كرتش ما جايز معها نكاسي خدوا آخر شيء مرة جدي حوي لقيسها دو جماعة القرآن كان حيسا وين دماته ولكن بقول تنتهي وحوي اللي حبلوا الكذب مش عارف بحكرنه اللي حبلوا الكذب مش عارف بحكرنه وقرما نحن بلود كدي بلا شيء وجولاي waxaan galana waa February maanta marka July mishaar laba bixi karo jimcada qurma ka dhaxaysa boqolkiiba 6 iyo 20 jimcada qurma ka dhaxaysa boqolkiiba 6 iyo 20 waxa bixin jiray Mareykan adduunka kale inta kale isku tagay waxa jira 66 urur oo caalami ah iyo ka baxay 66 urur يكبحي مريكان كبحي oo ko iyo sodon ay yihiin urur jimcada qurmaan ka dhaxaysa qabida ka baxay ka insaxaabay dhaqaalin ka goostay marka iya sameeyay jimcada qurmaan ka dhaxaysa Mareykan ma sameeyay iya duminaya Mareykan duminaya badilkii ma la diyaariyay jimcada qurmaan ka dhaxaysa badilka noqonay maya wala ma hayo waxa la hayaa majlis uu bixiyay majliska nabadda oo soo imka dawladaha qorqoro kan shan dawlad ba fiita lahama kan soo qorata fiita yalnaya soo Trump wado marka dunida waxa la galay jawi madow oo meel loo socdo galin marka dawladihi yaraa waxay u ordayaan inay ku ordaan wada kale dhaxdo shiinaha balna ka helaan shiinuhu muxuu mataqaana ajiib shiinuhu sanadkii dhawada 2020 waa sanadkii ugu adkaa ee Mareykanku uu saaray cunaqabateyn ugu soo saaray taariifka uu saaray Soomaa shiinaha ma taqaanaa inta uu macaashay waxa loo yaqaano al-faa'id tijari amba waxa loo yaqaano ribx tijari bay mushtarka macaashka uu keenay shiinuhu ma taqaan waa kii ugu sarreeyay adduunka imsoo keenay hal trillion iyo 300 oo milyaar oo dollar Mareykan maxaa ku dhacay ajzigii ugu weynaa 20 sano ugu dambeysay waa tahay bay mushtara marka shiinihii ma hayo isagu nidaam ilbaxnimo oo lagu ordo بديل حضاري maaha بديل فكري maaha فكر ما hayo بديل سياسي maaha siyaasad ma hayo laakiin wuxuu noqday بديل اقتصادي iyo teknolojiya adduunka maantana birbaxa kunta iyo lacag maado marka hadii maado lahayd maado kara maado batal leeyahay waa tahay ma sha Allah waxa la filayaa dhowr arrimood waaweyn dunida ka dhacdo marka koobaad waxa weeyaan ma burburtay Iiraan ka soo qaad وافتراض يعني كسوقات فرض إن إيران لبربريو لقات كذا إيران ما كل بربرتو لبس يديره هذا وهو بدعيا وهذا عيا دجال سكري وإيران هي تدخل قد حمر إيران هبكي لا هبكي إيران عايزة شلاب كذا دجال كاسي وحقلي دونا خليج كله وحنا بلامي دونا دجال السنة الشيعة قرونا waxaa labaad oo bilaami doona qaxootinimo aan caadi ahayn oo wadamada khaliijka la gali doono saddex waxaa bilaami doonta in ay Turkiga iyo Sacuudigu ay gudagalaan inay iyada iyo Israa'iil iswaajahaan taasi waa hadee burburto weeyaan
haddayna burburin ay iiraan laga adkaan kari waayo maxaa dhacaya waxaa soo socda kow iiraan waxay samaynaysaa inay bariga dhexe u gubto ugu yaraan waxaa la yidhi waxaa dhici doonaa 3,500 oo saaruukh iyaa ka soo bixi doona meelo kala duwan oo ku socon doona meelo kala duwan 1,500 Israa'iil bay tagi doonaan majority qatar kuwait imaaraadka sacuudiga turkiga inta kale dhanka turkiga waxaa lagu qabtay mukhaabaraad iiraan ay leedahay oo sawiraya meelaha in la soo weeraray tahay marka meelaha oo dhanba madaaficda ku dhacaysa iyo waxaa kale oo weerar lagu qaadayaa diyaarado iyo doonyaha bari yaala khaliijka waxaa la xidhayaa baddaas waxaa la xidhayaa iminka shalaytood darad waxaa laga ceshiyo badweynta hindiya dowlad diyaarad markab ay leedahay dooni ay leedahay dowladda ingiriiska oo mudamir ah ku wax dumiya waa la celiyay iiraan baa celis halkaa baa laga hadla noqo wiido wax ku dhacda way noqotay marka waxaa la xidhayaa maaragtay marinka hormus xidhmaya isagu waxaa xidhmaya bariga maaragtay badda carabta markay dhulkaasi xidhmaan batroolku wuxuu noqonayaa $200 barmiilka meeshanka baa qaali noqonaya kacaya bariyahan waxaad maqashay dahabku inuu gaadhay oo qiyad inay gaadhay 5,600 ugu badneed buu gaaray ebed waa laga soo ceshay kadib cajiib ah 4,600 lagu soo ceshay warqaysa dib u la xoog ma caadi waa lucba waxa weeyaan waxa dhacay fidadii $120 bay noqotay oo qiyadii xalay waxa ku soo qotay $8 waxa man yalcab marayka ciyaarade dollarkiisu USD dagaalka waduu dhaco waa filin soo socda laga hortagaya soo fahmaysid marka hadduu dagaalkaasi uu dhaco waxaas oo dhan bariga ka dhacaya taasina maxay u keenaysaa adduunka dhan bay u keenaysaa dhibaatada weyn waxaa markaa dhibaatadaasi ay ku dhici doontaa shiinaha dowladda labaad u kaybsada gaaska weyn iiraan sacuudiguna waa dowladda koowaad u kaybsado venezuela dowladda saddexaad ba waaya shiinu وبربع دخلوا بعد كده شينا سامين بام بيكويالني يوكيالني صح مريكا وكبد بادي اسو oo gaaskiisina waa haystaa gaaskii Venezuela gacanta ku haya inta oo dhan Canada waa u dhowdahay marka isaga Mareykanka waa u xalaashay gaaskiisii laakiin gaaska dunida sare kacay way taasirinaysaa dhaqaalaha Mareykanka qofka qasab dhaqaalaha dunidu waa isku xiran waa globalization waa isku xiran yahay marka dhibaato dhaqaale weyn baa dhici doonta arinta ugu dambaysa waxa weeyaan dagaalka haddii Iiraan laga adkaan waayo waxaa dhacaya in Israa'iil ay u bilaamato in ay iscunto cadowgeygii ay dumi lahayd waa laga adkaa ugu soo taagaya waxaa bilaabay marxaladu ta'akulkii Israa'iil ee labaad yaa bilaabaya cumrigeygii loo qabanayay ma dhaafi doontaa 2020 iyo 30 iyo 30 iyo sii xaqiiqsamaya marka taas waa iyadoo